شربات halkaas waxaa ku qoran shake well before use inta aadan isticmaalin ka hor inaad si fiican u lusho ama aa u luxdo maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad baraha bulshada la iskula dhexmarayay sheeko ku saabsan in dhalooyin ama qaroodo yar yar laga helay sharabada caruurta la siiyo oo qano jibinta ah waxaan la joognaa Dr. Xuseen Cabdicasiis oo loo yaqaan Dr. Fadxi oo ah khabiir in badan ka soo shaqeynaya arrimaha caafimaadka aqoon badanna u leh daawooyinka dalka soo gala doctorka waxaan weydiin doonaa su'aalo ku saabsan sharabadaasi iyo waxay tahay iyo waxa ka jira in sharabada ay dhalooyin ku jiraan Dr. Fadxi soo dhaw shamis adigii baada STN TV aad u mahadsantihiin Ibujesic waa sharabada hadda baraha bulshada qabsatay saad sheegtayba Ibujesic muddo ayaa waddanka laga isticmaalayay dhowr sano ah sida aan sheegnayba laba shirkadood ayaa product garayso shirkaddan Milano la leeyahay Milan Laboratory India iyo shirkaddan kale Shalina oo healthcare ayadana base weyn ku leh Mombasa sharabadan Ibujesic ah waxay ka kooban tahay laba maado paracetamol iyo Provin waxa loo isticmaalaa xanbaabiyo marka laga hadlayo habka ay social media wax soo dhigeen way dhici kartaa daawo la soo saaray inay saameyn leedahay oo runtii laysinkii lagala laaban karo ama la dhihi karo daawo hebel shirkad hebel daawo hebel ha ka saarto suuqa maadaama dhibaato intaas leeg ay leedahay marka certificate system data system Kenya waxay ku biirtay around muddo hadda laga joogo in ka badan 14 sano ayay marka shirkadda daawadan samayso in ka badan 25 sano ayay expert ku tahay waxyaalahan caafimaadka la xiriiro wadamo badan oo Afrikaanina wax geysaa markaysaan waxaan gacanta ku hayaa sharabadii waxaan rabnaa inaan tijaabadii social media qaadatay inaan marsiinaa darta sharabada halkaas waxaa ku qoran shake well before use inta aadan isticmaalin ka hor inaad si fiican u lusho ama aa u luxdo waxaan rabnaa inaan tijaabadu aan laba qaab u sameeyno midna waan luxaynaa midna ma luxi doono waxaan rabaa hadda inaan luxitaan u sameeyo sharabadu maadaama instructionka ay siisay warshadii soo saartay ay ahayd inaan si fiican u luxo waa luxay hadda sidaad arkaysaanba waxba hadda igama muuqdaan sharabada markaan luxay waxba hadda igama muuqdaan waxaan rabaa inay la tijaabiso shamis oo wariyaha barnaamijkan sida kaamirada laga arki karaba geedka salkiisa waa nadiif waxaan xusid mudan markaan luxnaa ku shubnay inaan biyo kor kaga shubnay si aan bal u aragno wax soo haray oo meesha ay nadiif u noqoto laakiin ma jiraan wax soo haray sida horay sharabada ugu socotana tan waa luxnay ama waa isku luxnay waan tii ugu horeysay waxaan shaamin doonaa hadda mid kale oo ah ayadan la luxnay doctorka wuxuu tijaabiyey tii hore oo la luxay ama la isku luxay balse midaan hadda ma anaa luxin sideeda ayaan rabnaa inaan shaandhada ama meerka suuqa ku yaqaana ugu shubno waan sidaas ku tijaabino bal wax ka soo baxaa kana waxaan ku shubi doonaa biyihii hoosey kusoo haran sharabadan oo ah tii labaad oo aan luxin markaan ku shubnay waxaan ka dareena wax yar yar oo aan ishu qaban karin markii xitaa aan biyo ku shubnay way milmeen wixii way dhamaadeen weliba markaan soo qabanay oo xitaa aan gacanta saas ku niraahno way baaba'ayaan marka halkaas waxaan ka dareemi karnaa in wixii faahfaahinta doctorka dib noo sheegi
aan la luxin in wax yar yar oo cadcad ay ishaan qabatay laakiin markaan xitaa hadda way dhammaadeen way baabi'een biyo haddaan ku shubno xitaa waxmada inay biyuhu milayaan oo ay dhammaanayaan ayaan ku aragnay laakiin tii hore aan luxin kuma aan arko sida aan sheegnay system bay leedahay lagu siiyo certification ama logala laabto marka annaga ka dhakhaatiir ahaan wixii systemkaas maro unbaan dhihi karnaa lama isticmaali karo laakiin annaga weli waxay noo taagan tahay sharoobadan iyo bujeesiga ayadoo certificate haysato oo shirkadaha soo saarana la yaqaano Shalina iyo Milan labadaas Milan Laboratory India iyo Shalina Healthcare in Kenya basekeeda Mombasa uu yahay ayagoo haysto certification anaga noogu dambeysay marka ma dhihi karno hala joojiyo unless aanan arkin hay-ad waxaan ku shaqo leh oo dhahayso wax la sheegayo waa saas qaladkaasaan ku aragnay hala joojiyo maya warbixinteeda hore waxaa ku jirtay data system Kenya inay ku jirto oo aad looga isticmaalo weliba Kenya marka annaga kaliya wax naloo soo saaray ma annaga kaliya haddii naloo soo saaro waxaan dhihi lahayn waayo waddamada kale loo geyn waayey iyo waddamada kale inta la geeya ha la baari iyo xitaa haddii Soomaaliya kaliya loo soo saaro dhihi ma kartid Soomaaliya kaliya loo soo saaro waxaan xaq u leenahay inta qaadno inaan institutionada iyo hay'adaha caalamiga ee baaro inta u dhiibano inaan dhahno noo baaro waayo coronavirus oo kale waxay sameynayeen tiimka wasaaradda caafimaadka iyo guddiyadii ku shaqeynayay waddanka dibadda Kenya lagu soo baarayay markii dambe laabkii iyo systemkii la fariisiyay waddanka gudihiisa lagu baarayay marka haddaan xitaa cabasho qabno cabashadaas waa in aan u dhiibano dowladda kale waxaa laga yaabaa Kenya xurgufaa nagala dhexaysa waxyaaba noocaas la dhaho Kenya coronavirus ay noo soo baarayso oo qofka halka qof uu gaarsiin karo intaas oo boqol oo qof sharabadan ay bujeesiga halka cunug ay cabo bay saameyntiisa ku ekaanaysaa laakiin waxay noo soo baaraysay COVID-19 marka kaba soo qaad xurgufta xitaa dii loo fiirinayo marka ani ma fahmin macnaha ku jiro COVID-19 oo saameyntaas leeg lahay inay noo soo baarto Kenya haddana sharabadan la dhaho system kale laga damacsan yahay